Maryooley markii lagu yiraahdo degmo weeye degmadeeda in magaceedan maqlaysaan maayana waa duntay sideedaba dadka danleyda ah ku soo haray mooyaane dadka kale oo taajiriinta ee lacagta haystay ceelasha ilaa abgoy ilaa xamar uu kala degay salaamaad marka dadaan tabar iska haysa ku dhaawacma oo ku dhinta Maryooley kullaytu waxa way dhibaatada meel kasta ay taala ayaa iska taala meena ka kacday waxna dad waa iska naqday laakiin waxa dad ku dhintay ma jiraan laakiin 7 qof ayaa ku dhaawacday ma garat waa gartay marka dhibaato zaid ah kama dhacan suuqa qudaarta meesha geedaha lagu gado oo jarta lagu dheelo ayaa askar iyo waxyaabahaas ay u badan tahay waqtiga jaadka eerida uu soo dhawaayo waa marka waa meeladii dad jarad dheelay ciyaal jidka maray ay halagtay askari wax kuma gaaran shacab ay halagtay marka shacabkaas wada dhaawaca oo 7 qof wada dhaawaca amniga oo magaalada ayaa meesha ku sugnaay dadkii xaaladaas waa la qaaday dhabiib baa la geeyay isbitaalka la geeyay qaarkood waa caafimaad qabaan qaarkood waa suuxeen waa soo naaxeen hadda degmada maamulka ayaa gacanta ku haya kali carawaal nin la dhahay ayaa taliiska meesha joogo kullaytu waxa weeye maamulka caafimaad oo qaba waa fiican yahay ganacsiga waa kala socdaa dadku way kala socdaan baabuurtu way baxdaa waxba kama jabana walaal waa gartay waqtiga qaraxa uu dhacay iyo sidoo kale goobta rasmiga qaraxa uu ka dhacay bal iyada maxaa xoga ka haysa waqtiga qaraxa uu dhacay meesha suuq qudaar oo bulsho ay ahayd bulshadii dhan sidii waqtigaas miisaskeeda iyo maqaayadeeda ay u laabatay ay u kala hooyatay ilaa hadda horta meesha ayridaas waa laga kala tagay amniga waa gaaray waa la baaray wax kala kuma jiraan marka sidii kullaytu oo bari ay u imaan karaan ayaa hadda falkeeda lagu jiraa ma garan maya qaraxaasi waxa waaye hadda qaraxa kullaytu miina sideeda shakhsiga ma keensada urur baa soo dhiibay qabiilna ma keensada miinada waa shabaab waa dad shacab ah oo masaakiin ah ciyaal hataa waxbay ku gaareen ciyaal iska socda hataa waxbaa gaaray ciyaal iska fadhiyay baa wax gaaray dad oo jara dheelaayo oo jara oo iska dhintay asiga waxbaa ku gaaray firir iyo waxyaabahaas gaaray mooyaane wax hadda dhimasho ah ma jiraan walaalkii macan isbitaalka ibnu kasiir oo gudaha degmada ku yaal degmada ku yaal isbitaal bakaasa ku yaal marka isbitaal kale ma lahan shalambuda nooga sokeeya isbitaalada dhan everywhere waa burbursan yihiin isbitaalkii dawladda oo hore ay u lahaan jirtay waa burburay waxa oo daawo ah lagama dhiibay dad lagama dhabiibo sidiisaba isbitaal la'aan baa la taagan yahay walaal meel goob caafimaad ah baa aad degmada ay ugu dhiban tahay oo shacabka dhibaatadiisa waa inaan ka hadalna shacabka dhibaatadaas oo qaba umuliso malahan waxa uu leeyahay nin xanuunsaday meel la geynayo mala nin xabad ku dhacday dhiig joojin malahan shalambood ugu sokoysay shalambood nin oo dhaawac shalambood dhexdan jidkana raf waay wax dhimasho ah ben waay kadaib waay ninkii ku dhacay dhaawac waay hal wiil ugu darnay halkaas wiil wali waa nool yahay dadka aad iyo aad cabsi oo zaid ah ayaa ku dhalinaysa kalsoonida dhan ay ka wada tagayaan oo ay wada cabsanayaan magaalada hortideeda